عامل بالوحش الحد اللي بس يساع إن حالي جدا بمجال دربن أو شمالي ده كله شيء اسمه مكان معلومين صار في كيجري باتوي أجنبي من العيبة أو يجي سنة يقدر كسر أمريكان كا ده برا فربنا وأجانب من الجبوي. عبد الله أمين قرشة ولا الوضع سنت هاي وحياة لابس بقارة مركب بقرة قومية الزولوها وردبت يا قومية أو بلدان كونفور أفريقيا وقصي أما أمر كبيحي إن دتك اللاجئين قبل كوازول ونتال جوجا كبحان أسباب سبب أوقات دقيقة إن يسن وحوانات والقصة كورينا دتك يسنجرين بل سيء خسارة وطن أرنكي هذا الكي معرفتي كي بقر كوين كزولتيني كتب حال على إن مجالوين كي يوحوا بدنا ينزلوها أما حزبي معارض إن كانت فريدهم باتم أي في لو يقانو إن ورر له قادة اللاجئين أما قحوتي وجوجي taasoo sababtay in dad ka badan tiradooda 3 kun ay xaro u galaan way hadda xaro ku jiraan halkan lagu qoodiyo way jiraan muwaadiniin Soomaali oo dib ka soo gaaray kasoo Soomaalida ku badnayn laakiin dib kuma gaarsiisana mid maaragtay naftalooda ay ku waayeen balse waxa la waayay waa hantida qaar oo burburtay iyo dad barakici ka soo gaaray dibab watahay in waxa jira warshii in maaragtay dad Soomaali ah in dad lagu qabsiyo dukaamo ay ku jireen oo loo adeegsaday dhalooyinka bamba troolka laga sameeyo dadkaasi tiradooda maxaa xaqiiqa oo ka jira intee leeyihiin Soomaalida halkaas lagu dhibaateeyo oo boob u soo gaarayna tiradooda waa meeqo runtii tira koob rasmi ma hayno wala dawladda rasmiga ama wasaaradda booliska maalmahan ku isku taxallujisan haynin laakiin ugu jira warar badan oo been abuur ah oo idaacadaha qaar ay qaateen sida social media Facebook yada iyo Twitter kala isdhaafsaday oo ah dad ay ku jiraan Soomaali in nolosha lagu gubay taasi waa been abuur internetka lagu sameeyay mana aha mid ka dhacday KwaZulu-Natal balse way jiraan Soomaali dhaawacyo soo gaaray ayagoo la inta hantidooda la boobay dacatiyo Soomaalida ay u geysteen Koonfur Afrika way jirtaa dad gacanta Soomaalida ku dhintana way jirtaa intii ay iska caabinayeen dadka weerarka ku soo qaaday bat waqti xaadirkan inta ay dawladdu soo gudbisay dadku ama dhintay ama ku geeriyooday rabshadahan waa 3 laba ka midna waa muwaadiniin mid ka midna waa laaji oo ka soo jeeda dalka Itoobiya watahay in waxa jira in boqorka Zuluga King Zulutina inuu sheegay in maaragta hadalku ka sheegay blonga meesha la dhaho in been abuur ay ahayd oo hadalka soo dhigay ma ahay si kale loo turjumayo saxaafadu qayb ka tahay in kacdoonka shaqeeyay shacabka Koonfur Afrikaanka arrintaasi in idinku jaalidahan sidee u dareemaysaa runtii markii laga hadlo hadalku Kinga ama boqorka uu yiri mar labaad arrinta laga weydiiyay wuxuu dhahay dib dambe uga laaban maayo hadalku waa sidaan maaragtay oraad way iga soo baxday waxaan doonaynaa dadkan inay dalka noo faaruqiyaan dalkooda ay ku noqdaan wali markii labaad su'aasha la weydiiyay wuxuu sheegay waqtigii dalkan uu gumeystaa haystay cadaanka oo tirada yaraa in dadka Afrika Koonfur Afrika ka tagay aan loo ogolayn inta badan inay bulshooyinka dhaxgalaan ganacsiyo ka sameystaan balse xirooyin ay ku jireen maadaama dawladda South Africa ay xakameyn karin wuxuu ka codsaday mar labaad inay noqdaan laakiin uu jira hadal shalay ku soo baxay idaacadaha oo afayeen u hadlay boqorka uu leeyahay hadalka waxaa turjumay tanna waxay imaanaysaa waqti cadaadis la saaray dawladda Koonfur Afrika cadaadiskaas oo uga imaanaya maaragtay caalamka sida midowga Afrika runtii aan maaragtay filayno inay ku shiraan dalkani bisha July ee soo socota watahay arrintan dabcan way socotaa wali oo maalmihi la soo dhaafay waxay sii noqonaysaa dadku ay kacdoon sii sameynayaan oo marba deegaan ay ku sii gudbaysaa dad hor leeyahay sii dhibaateynaya dawladdu waxay sheegtay inay cambaareynayso oo kaliya maxaa kaloo isbedel ah oo jiro iminka oo dadku ay ku tashan karaan oo la dhihi karaan halkaas waxa laga sameeyay isbedel dhinacyadaas oo lagu hortagayo arrimaha runtii shalay wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma wuxuu u magacaabay 3 wasiiro isku xigay wasiirka booliska wasiirka amniga qaranka iyo wasiirka arrimaha gudaha inay ka qayb qaataan xaaladdan sidii loo soo afjari lahaa lana shaqeeyaan dawlad goboleedka KwaZulu-Natal markii ugu horeysay madaxweynaha sidoo kale wuxuu u bedelay wasaaradda arrimaha gudaha mid xagga amniga ah soo ku biiray ciidamo ka badan 350 ciidamada militariga dalkan inay ka howlgalaan lana shaqeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha
kuwaasoo loogu talagalay in maaragtay wax badan ka qabtaan xuduudada Koonfur Afrika oo inta badan la dhahay ma aha mid aad u xayiran ma aha oo shakhsi walba uu soo geli karaa. waxaa jirtay in la filayo madaxweynaha in usbuucan intuu dhammaanin uu maaragtay uu tago booqasho uu ku tago qaybihii uu dhibka ka dhacay lana kulmo dadkii uu dhibka soo gaaray. intaa ka horena waxaan filaynaa in insha allahu tacaala isbeddel imaanayo. rag aan xiriir la samayna way jiraan oo Soomaalidii ama jaaliyadaha maaragta kaleeto oo Afrikaanku qayb ka nahay. insha allah waxaan filaynaa wafdi naga socda inuu tegi doono, wafdigaasna uu qayb ka qaadan doono dib u celinta walaalaha. waxaa kaloo qoondaynaynaa in odayaal dhaqameed Koonfur Afrikaan ah iyo dad waxgarad oo laajiin ama qaxooti soo galoota inaan u dirno boqorkana ay maaragta kulan la qaataan. arrintuna haddii dhibka anagu nalaga tabanayo uu yahay mid dhabna